بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto wad salaamantiin. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago softwarekaas oo ah software editor. waa software aad u muhiim ah oo lagu isticmaalo dhammaan telefoonada maskaxda leh noocyada kala duwan. softwareku waxa weeyaan waa KineMaster-ka halka idinka muuqda. haddii aan u daadego baan ujeedaa ujeedadeeda. KineMaster-ku waxa weeyaan waa nooc ka mid ah noocyada ugu wanaagsan amba software ka mid ah softwarada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo muuqaalo habaysan aadna u qurux badan. haddaba softwareka KineMaster waxa uu wataa calaamad ama logo ama astaan u gaar ah, taasoo u arkay dadka qaar dhibaato ku tahay. anigaba dhibaatay ku had markii hore. haddaba si aad uga maaranto loogada ama astaanta KineMaster-ka ood u hesho KineMaster bilaa looga oo free ah, inkastoo markiisa horeba KineMaster-ku yahay software free ah, laakiinse ay ku xiran tahay ama la socoto astaantiisa ama loogadiisa. si aad u hesho KineMaster ka maran astaanta ama loogada ama calaamadda uu leeyahay, waxaan sameynaynaa tallaabooyinka soo socda. aniga ayaad ila soconaysaa. waxaan tegaynaa KineMaster-kii hore waan tirtiraynaa. kan baan dib soo dejinaa. Play Store-ka tegaysaa. markaad tagtana waxaad ku qoraysaa KineMaster-ka inta halkaa sare ku qoran. waxaad siinaysaa install, soo dejiyaa. waxaanu sugaynaa wax yar. way noo soo degay. waxaanu sameynaynaa halkan fur baan odhanaynaa. markuu inoo furo waxaanu siinaynaa ogolaansho. markaan ogolaansho siino waa kaa weyna geeyey. muuqaalkaasaynu eegaynaa. waa kaa calaamadaynu ka hadlaynaa waa taas ama loogadiisu waa taas. haddii aad ka sheegsatay muuqaalkan waabaan tirtirayaa. muuqaalkan idin sameynayaa. waxaan odhanaynaa halkaasaynu ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay mashruuc cusub baynu sameynaynaa. markaad rabtaan sameysa halkaasaan ku dhuftay. media browser-ka ayaad ku dhufanaysaa. haddaad rabto sawiraantaada baad iska soo dejinaysaa kuwan. haddaad rabtana background-kiisa ayaad tegsaa. taadaan soo dejiso. markaad soo dejisato calaamadaas tigtaad saaraysaa. wataas wataa calaamadiisa wataas. waa lacag wax free maaha. wuxuu ku leeyahay si aad soo saarto calaamadiisa waa inaad upgrade ku sameysaa ood lacagtaa bixisaa intaa la-eg. haddaad rabto inaad hal bil isticmaasho lacagtaasaad ku iibsanaysaa. haddii aad rabto inaad hal sano isticmaashona lacagta kale ee 31.37 ayaad ku iibsanaysaa. haddaba si aad uga maarato lacagtaas oo aad wax lacag bixin oo aad ku hesho hab free ama free yaan oranne hab ka maran calaamadiisa KineMaster adigoo wax lacag bixin, waxaad sameynaysaa sida tan soo socotaa. muuqaalkeena waa adiga aad ujeeda wuxuu la socdaa calaamadiisii. waxaan ku noqonaa qaybta weyn ee shaashadda. markay ku noqonana KineMaster-kii waynu tirtiraynaa. kaynu soo dejinaa tirtiraynaa. haddaba kan aan soo wado ama kan ka maran calaamadiisa loogada si aad u hesho waxaad sameynaysaa. waxaad tegaysaa Google Chrome-ka markaad tagto waxaan rabaa inaad ku sheego tilaabo. Google Chrome markaad tagto
anigu waa ka waxaan hayaa dabarkiisa amba linkiga amba url-ka qofka soo yaqaano. haddaan ku dhufto waa kaas, waa taxaga hoose uu ku qorayo dejiso KineMaster Mode 5. aniga already wii dejisan yahay, ma rabo inaan mar labaad soo dejiyo, laakiin idinkaan raba inaan tuso. haddaba si kasii faahfaahsan haddaan dhigo, halkan waxaad ku qori kartaa KineMaster Mode 5. waa kaas, markaad ku dhufatana waa kan kaa koowaad maaha ka labaad baad tagtaa. ka labaad markaad tagtana halkaa ay ku qortay download, halkaasaad tagtaa download 1 baad ku dhufanaysaa haddaad u baahan tahay. wuxuu keenaya halkaa Mediafire ay ku qoran tahay, waa kaa halkaa ku qoran tahay KineMaster Mode 5. kaasaad ku dhufanaysaa haddaad u baahan tahay. saasoo kale tusaale ahaan odhanaysaa dejisa, waa kaa kula. anigu uma baahni saan idin hore idinku sheego, waan haystaa. marka anigu kaygii baan idin tusayaa aan soo dejisay. wuxuu igu jiraa qaybta waxqabadka. qaybta waxqabadku waa halkan ama memoryda saa u taqaano. waa kaasaan ku dhufanayaa. markaan ku dhuftona markaad soo dejisto waxaad ku sameynaysaa open baad siinaysaa. open markaad siisana halkaa ay ku qortay settings aad kusii dhufanaysaa. settingska markaad ku dhufatana halkaas ay ku qortay annual source ayaad ku dhufanaysaa. kadibna okay dheh, kadibna gal dheh. markaad gal tiraahdo waxaad sugaysaa dhowr second. markaad dhowr second sugto waxa uu isfurayaa. markuu isfurana gudahaynu sii galaynaa, bal isbedelka dhaca ayaan rabaa inaad aragtaan amaan tuso. dad baahantayna halkan baad fur baad odhaysaa amba dhan, anu dhan baad siinayaa. markaan dhan siiyana waxaan ku noqonaya shaashadii weyneyd. qaybta shaashadda markaan tagana waa kan KineMaster Mode bay soo degay. markaan ku dhuftay waa kan waxaan siinayaa ogolaansho. markaan siiyeyna waa kan muuqaalkii markii hore aan sameynayay aan tusay. waa kan isla muuqaalkii, bal haddaan iminka balaysiiyo waa kan. wax calaamada ma wato, taas calaamada uu ka maran yahay. waa kaas seera easyga ayaad ku helaysaa ee aada ku fudud. haddaba KineMasterku waxa weeyaan waa software aada u muhiima, una muhiima dadka telefoonada isticmaala. waxaan lagu isticmaalaa noocyada kala duwan ee telefoonada. waxa uu leeyahay media browser, audio buu leeyahay, overforce buu leeyahay oo cod baad ku dul qaban kartaa. waa kan layeriis waxaas qaybahaas oo dhan buu leeyahay. taxinti buu leeyahay, handwritingii buu leeyahay, effectskii buu leeyahay, mediadii buu leeyahay. audiodu waa kan adaynu ka kano tusaale ahaan ku darnamo codka soo qabo. waa kan waan soo qaatay, tigtaasaan ku dhufanayaa. waa kan muuqaalka halkaas saa ugu dhufo. kadibna waxaan sameynaynaa train baan tegnaa. train markaan tagnana waa kan waxaan ku sameynaynaa cutting. qaybtan aan jaraynaa. waa kaas haddaad rabto waxa weeyaan back dheh. haddaad rabto inaad qaybtan jarto bidixda, kaasaad dhufanaysaa sare. haddii aad rabto inaad qaybta ku dhufato qaybtan kala jarta sida tan aan ugu jarayo kalena tan labaad baad ku dhufanaysaa. haddii aad rabto inaad bartanka ka jarta ama baratamaha dhexda na taa hooseed saddexaad baad ku dhufanaysaa. haddaba anu qaybtan baan ka jarayaa. waxaan ku sameynayaa qaybtaasaan le iga saar, oo iga saara ii soo gaabiyey. waa kaas waan daaraya. haddaba halkaas music uu ku shaqeynayaa. haddii aan eegno qaybta taxinka, waa kan taxinkiisu amba qoraal haddaad rabto. waa kan igu qoraan kaygan channelkayga magaciisa. haddaad baahata inaad sameyso taxin shaykina ama boodboodayo kale tusaale ahaan, waxaad sameynaysaa oo kale ugu fudud. halkaa maaragta ay ku qorantahay miftaaxa ee khadka casaaran yahay aad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad eegaysaa waqtiga aad jeceshay iyo qaybta aad jeceshay inaad animation ku sameyso ama aad ku sameyso
taxing animation ayaad ku dhufanaysaa halkaa yar ee goobada ee balaas saaran yahay. Calaamada yar goobada dhexda cas buu saarayaa. Kale halka haddana agtiisa garabkiisa ku qabanaysaa. haddana isla iyadoo ku dhufanaysaa labada khad labada calaamadood baan jeedaa mid baad yaraanaysaa qoraalka hoos u eri waa kan kalena saa usoo weynaada weliba soo yara weynee kale ka qaad weliba soo yara weynee halkaa kala tag ka kalena ku xigsiy haddana ku dhufo sorry ka hore yaree halkaa igu dhufo ka hore yaree kalena saa inoogu weynaado halkaa haddana inoogu dhufo kalena halkaa ku dhufo ka hore yaree kana saa inoogu soo weynaado halkaa inoogu dhufo haddana halkaa ku dhufo adigood sii wadwadaysaa ilaa iyo intaad jeceshaad ka dhigansa kana saa usoo weynaado weliba kan soo yaro durka haddana marka waa kaas shayki buu sameynayaa waa kaas haddaad rabto ay qoraalkan aad hore usii wado animationka kusii sameysana waa kan qoraal boodboodaya qaybta animationka qoraalkan waa kan slide left, slide up, slide down. qaybahaas oo dhan buu leeyahay. qayb kalena waa tan oo iyadu kaasa waxaasoo dhan buu leeyahay. marka waxa weeye waa program wata ama program complete oo dhammaystiran oo u dhammaystiran waxyaabo kasta oo aad baahi u qabto oo ah inaad ku sameysan qoraal. laakiinse dhibaatadiisa ayaa ahayd inuu watay KineMaster. marka KineMasterka calaamadiisana si aad uga saarto waxaad raacaysa tallaabooyinkan aan soo xusay adigoo tegaya Google Chrome-ka kuna qoraya KineMaster Mode 5 download APK ayaad u soo dejinaysaa amba u download garaynaysaa. marka soo dejisana calaamadiisii loogadiisana saas ayay kaga baxaysaa. marka programkan waa program amba softwarekan waa software aada muhiima oo HD aanad ku samayn karto muuqaalo aada qurux badan una tifatiran si alilaasa jeceshan aad ugu samayn karto oo wax kasta wata waa jeceshan aad ku samayn karto. marka waa kaas saasaan jeclaa maanta inaan la wadaaga ummadayda Soomaaliyeed iyo shacabkaygana aad ku jeclay Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan dunida dacaladeeda meel kasta ka joogaan sorry aan jeclaan la wadaago. marka habkaas ayaad ku heli kartaa KineMaster Camera. haddaad rabto inaad videogan saarto amba aad ku saaf garayso qaybta muuqaal qabadka ee mobilkaaga halka calaamada yar baad ku dhufanaysaa ku dhufatana muuqaalkaad farta ku dhufanaysaa taasaa ku dhufanaysaa haddana save to gallery baad siinaysaa. high definition baad rabtaa haddaad rabto waxaad ka dhigaysaa 720 oo ah HD ama muuqaalka HD uu ka dhigayo. haddaad rabtona waa kan low quality waa kan markaa kaasara ku dhufo uu degayaa muuqaalkaagii aad samaysay wuxuu ka degayaa qaybta muuqaal qabadka galleryga loo yaqaano telefoonkaaga. waxaan sugaynaa sikanada uu tirinayo inoo dhamaanaya waxba inoogama harin. markaasuu ina degay haddaad okay tiraahdo iyo haddii kaleba waa kan uu ku export kusoo qoray waa la u baxay wuxuuna ku saaf garaysmay xaggaasna waa kan ku qoray
save video to galleryga ku save garayso. waa kaas. haddaad rabto waxaad bedelaysaa bitratka amba qaabka maxaa dhahday HD-ga amba calaamadahan lambaraantan ee 720 iyo wixii lamid ah ayaad bedeli kartaa. waxay ka dhigtaa 180. haddaad muuqaalkeena dib ugu noqono waxaad ku samaysan kartaa loogaada adigu leedahay ayaad ku samaysan kartaa. loogadaadi waad gashan kartaa halkii aad tiisa gashan lahayd. imanka aniga loogadeeda waa taasoo kale calaamada Barcelona kala kasoo dejisanaya. inkastoo aniga loogadeeda ahayn laakiin loogadeeda halkaasay ku jirtaa tusin. marka waxaad sameynaysaa halkan waxaad ku sameynaysaa waad yareynaysaa saasaad u jiidaysaa halkaas waad dhigaysaa kadibna wataa calaamada Barcelona ku taala. loogadaada kadibna exporting baad ku sameynaysaa mar labaad u baahan tahay. Camstarcad waxa weeyaan waa completely software aad wax kasta uga baahan tahay. waana noocyada ugu wanaagsan ee la isticmaalo. loona isticmaalo in video ama muuqaal tifatiran lagu sameeyo adigoo oo maraya telefoonkaaga maskaxda Android-ka amba iPhone-ka amba noocyada kale kala duwan kulba nooca haysto. marka maanta muuqaalkeenu intaas ku saabsanaa. kole dad yaqaana way jiraan, dad aqoon way jiraan. marka intii taqaanaana way taqaanaa, intii aan aqoonna waxaan jeclaysan la wadaaga muuqaalkan anigoo qaybta hoose ee description-ka YouTube-ka u gelin doonaa. qofka u baahan inuu la dego Camstarkan ayaa waxaan u gelin doonaa dabarka halkaa hoosaan idin dhigi doonaa. qaybta description-ka ayaan idin gelin doonaa. idinkoo halkaa kasii tixraaci kara farsan baad ku dhufanaysaan si aad kadibna wax idin geenayaa halkii lagala degay ee media fire-kii kadibna saasaad kula soo degaysaan. marka muuqaalkeena maanta intaasaan kusoo gabagabanayaa. intii taqaanaana way taqaanaa, intaan aqoonna waxaas ugu faa'iidee. kole haddii aad taqaano amba aad wax aad ku dhaanto qof bili-aadana u faa'iidee. marka dadka kan jeclaysan aan la wadaago intan maanta qof kasta oo jecel inuu samaysto muuqaalkaasoo ka maran astaan kale soo u gashado astaan isaga u gaara uu leeyahay. marka intaasaan maanta nagu soo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. rabbi ha idin dhowro, miisaanka xasanaadkana hayno buuxiyo, ilaahay khayrkana hayno waafajiyo, wadankeenana ilaahay haynooga dhigo waddan lagu nimcaystay oo lagu barwaaqaystay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.